Soomaaliya oo ismiidaamiyey iyo hadalka uu sheegay ka hor ismiidaamintiisa waxaase sidoo kale madaxweynihii farta cijada leh ku baxsaday walaalkiisana uu ku geeriyooday qaraxaasi oo dul istaagay meedka qofka isqarxiyey hadal la yaab lehna ku yidhi in waraysi qaraxa kadib uu bixiyey madaxweynahaasi ayaa daawan doontaan waxaana ka hadlaynaa qaabka Soomaaliya uu ugu yimid ama uu soo galay qaraxa ismiidaaminta ayadoona dad badan xilligaasi ay rumaysan waayeen in qof Soomaali ah uu isqarxinayo in kastoo xilliyadii dambe la arkay xataa haween isqarxinaya dhammaantiin muuqaalka leegta saara siina shargareeya rabbi subxaanahu wa tacaala dhammaanteen umuuraha leenahay ilaahay ha inoo sahlo xilliga dadka Soomaaliyeed dhagahooda uu ku soo dhacay in qof Soomaali ah uu ismiidaamiyey waa 2006 bishii 11 dad badan oo Soomaaliyeed oo laga yaabo in adiga hadda muuqaalka daawanaya aad ka mid tahay way rumaysan waayeen in qof Soomaali ah inuu isqarxiyey isla markaana uu isku soo xiray waxyaabaha qarxa gaarina soo qaatay kuna dhuftay qolo kale uu la dagaalayo taas oo dad badan ay aamini waayeen laakiin way dhacday ilaa iyo haddana wali mashaakilaadka qaraxyada ismiidaaminta ah way jiraan oo waxaa la dhihi karaa marba marka ka dambaysa waa la sii casriyeynayaa waysa sii kordhayaan dhacdadan waxay ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay qofka ismiidaamiyey oo hadal jeediyey waxaa la dhihi jiray Cabdisalaan wuxuuna ahaa qofkii ugu horeeyay Soomaali ah oo sameeyay arrin noocaas oo kale ah wuxuuna beegsaday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo xilligaasi ka soo baxay xarunta baarlamaanka ee magaalada Baydhabo xilligaasi dawladdii ku meel gaarka ahayd waxay ku shaqeynaysay magaalada Baydhabo halkaasi waxaa sidoo kale ku sugnaa ciidamada Itoobiya oo duulaan ku soo qaaday dhulka Soomaalida ilaa ay ka soo galaan magaalada Muqdisho waxaana jiray xooga kale oo islaamiyiin ah oo midowgii maxkamadaha ay hogaaminayeen kuwaas oo gacanta ku hayay deegaano badan oo dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxaana xilligaasi dhacday in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf iyo gawaari galbinaysay lagu dhuftay gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa uuna waday qofka lagu magacaabo Cabdisalaan kaas oo ka tirsanaa xoogii Soomaaliya ka dagaalamaya inkastoo xilligaasi ay isku dhex jireen al-shabaab iyo waliba midowgii maxkamadaha isla markaana aan la kala bixin waxaana uu ku dhuftay gaarigii ka soo horeeyay kii uu saarnaa madaxweynihii dawladdii ku meelkaarka ahayd Cabdullaahi Yuusuf waxaana taas ay keentay in dad badan ay ku geeriyoodaan qaraxaasi ismiidaaminta ah oo ahaa kii ugu horeeyay waxaana dadka dhintay ka mid ahaa qof la dhashay Cabdullaahi Yuusuf Axmed isla markaana walaalo ay ahaayeen kaas oo ka mid noqday dadkii ku dhintay qaraxa gaarigii uu saarnaa Cabdullaahi Yuusuf ayaa burbur xoogan uu soo gaaray ilaa 7 gaari ayaa halkaasi ku burburtay waxaana aakhirkii la sheegay Cabdullaahi Yuusuf in goobta laga soo waday qaab lug ah arrin cajiib leh ayuu ku yiri qofkii ismiidaamiyey oo xilligaasi qoortiisa ee go'need laamigana uu yaalay wuxuuna ku yiri waryaa waan ku garanayaa cidda ku soo dirtay waxaana ku soo diray Allah u naxariistay Cusmaan Xasan Cali Caato oo xilligaasi Muqdisho ku sugnaa wasiirna ka ahaa dawladdii Cabdullaahi Yuusuf isla markaana ay isku dhacsanaayeen waxaana xilligaasi uu sheegay Cabdullaahi Yuusuf in qofka ismiidaamiyey uu ahaa mid uu soo diray Cusmaan Caato uuna ula jeeday in ehel ama qaraabo ama xigto ay yihiin Cusmaan Caato Cabdisalaan oo ismiidaamiyey taas oo muujinaysa in Cabdullaahi Yuusuf uu ka warhayay inuu jiro dhaqdhaqaaq la doonayo in la iskugu qarxiyo isla markaana qofka qaraxa fulinayo uu yahay reer ahaan reerka uu ka soo jeeday marxuum Cusmaan Xasan Cali Caato waxaana mas'uuliyadda weerarkaasi markii dambe sheegtay al-shabaab qofka ismiidaamiyeyna hadda ayaa daawan doontaan waxauna xilligaasi uu wataa suud iyo dhar qurux badan asoo isla markaasi isku ekeenaya inuu ka tirsan yahay borotokoolkii Cabdullaahi Yuusuf wuxuuna saaran yahay gaariga uu ku weeraray Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed madaxweynihii dawladdii ku meel gaarka ahayd oo aakhirkii
muqdisho yimid isla markaana ay keeneen ciidamada Itoobiya Cabdullaahi Yuusuf ayaa marka hore aan ku hormaraynaa waxaana telefoonka kula hadlay idaacadda BBC-da gaar ahaan Yuusuf Garaad waxaana la weydiiyey waxa dhacay aad ku maqlayseen madaxweynaha Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo isagoo jooga aqalka madaxtooyada ee magaalada Baydhabo aanu telefoonka kula xiriirin goordhaweyd ayaa BBC-da waxa uga warramay qaraxii maanta lagu sigay naftiisa ee ka dhacay magaalada Baydhabo maruu ka soo baxay baarlamaanka Yuusuf Garaad ayaa madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf waxa uu marka hore weydiiyey bal in isaga qaraxii maanta dhacay wax dhaawacii ay ka soo gaareen bismillaahir rahmaanir rahiim Yuusuf arwalta dhaawac maahay wax ilaahay ma qabo fal maanta argagixisanimo inala ku soo qaaday waa shiraa dadna waa dhintay labada dhinacba dadna waa dhaawacmay cidii haatan fal argagixisa doonaysa inay xal ku gaadhaan waa dad caqli xun bay la tahay waana garan karnaa kuwa yihiin madaxweyne kuwa tuhmaysa ma jiro noo sheegayso wadanka waxa yaala caan weeye Yuusuf laakiin hadda faahfaahin diyaar uma tahay inaad ka bixiso haddii qofna inuu magaciisa ka hadlo ma rabo waa baarayna waana helaynaa xaqiiqo weeye waa helaynaa ciddii ka dambaysay wixii maanta dhacay dadka ku dhintay waxaa la leeyahay nin walaalka ahaa ku jiray allah u raxmado arrintaas way jirtaa waa xaqiiqo soo maaha xaqiiqo weeye laakiin anigu waa isugu ka yimid walaalkay iyo dhalinyarada kale oo ciidanka oo ila socotay saddex nin baa naga dhimatay naxariis allaha siiyo nin waliba wakti buu leeyahay waktigiisa dhaafi mayo gacan ka xaq daran baa dishay ilaahay shaniya raxmad buu siin doonaa haddii rabbi idmo ciddii xaq daran wax ku dishanaa waxay la tahay aakhiro waxa sugaya waa taqa madaxweyne bal haddii aan ku sii weydiino sida wax u dhaceen ma wax wadada laydin dhigay buu ahaa ma wax baabuurtiina lagu xiray bay ahayd ma wax laydinku soo tuuray qaraxani xagguu ka yimid haddii aad xusuusato aw baabuurka labaad baan ku jiray kumay baan ay socday oo baarlamaanka soo baxay baarlamaanku waa tumaan shir lahaa maadama xukuumadda kalsooni loo qaadanayay anigu hadal baan baarlamaanka u sheegiyey baarlamaanka markaan ka soo baxay oo in yar ka soo socday waa qaraxu dhacay 500 tilaabo kama badnayn meeshii baarlamaanku ku shirayay meesha qaraxu uu ka dhacay baabuur baa naga wariyey baabuurkii noogu horreeyey baa baabuurku ugu dhuftay qarax weyn baa kacay qaraxyo kale haddana kacay waxaan hubaa laba nooc isugu jiray qaraxu iyo qaarna wuxuu ahaa suicide bomb buu ahaa baabuurkii qaraxa lagu qarxiyey oo baabuurkii noogu horreeyey ku qarxiyey 7 baabuur baa gubatay oo isdaba socotay qofkana maydkiisii meeshii uu yaal bamka wax ku qarxinayey kuwa kale oo maaragtay inta la ururiyey madaafiic xabadahooda la ururiyey oo wadada hareerteeda la dhigay oo meeshii baanu ka helnay oo waa baarnay markaa suicide bomb buu ahaa ciidan alqaacida iyo argagixisaha inuu waxaasoo kale samaysaano Soomaaliya ma joogto markaas baabuurkii adigu aad wadatay oo ahaa kan labaad uu ka badbaaday inkastoo 7 baabuur oo kala gubatay ma badbaadeen baabuurkii gubanayaan ka degnay anagu intayay ku jirtay baabuurka nin walbana hadee dab iyo waa gaareen waxaasi ay yeeshee anagu waa ka badbaadnay baabuurka iyagiina kulligiis waa gubtay dambas buu noqday ma dhabbaa meeshaas inaad ka lugaysay oo gurigaaga u lugaysay ma ogeena ciidan badan noo joogay ciidamada isoo qaaday markii dambe sheegan ka daba tago ciddii falkan ka dambaysay oo xaqiiqo bannaanka la soo dhigo qof shakhsiga la eedayn mayo cidna wax ka sheegi mayo laakiin ciddii doonaysa Soomaaliya xal uga doonaysa political assassination ma sameynayaayo suicide bomb baan qarxinayaayo dad baan leynayaayo markaas rabaa Soomaaliya inaan xukumo waxaan filayaa caqligoodu tamaan maaha ama waa yihiin waxay ku gaari mayaan marka dambe iyaga dib ugu noqon doontaa haddii aan idmo laakiin anagu falka noocaas oo kale mana samaynayno kuna kicimayno haddaan dagaalamayno markii ayna weeraro kafool baan u dagaalamaynayo anagu political assassination samaynayno madaxweynaha Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo isagoo madaxtooyada وليس موتي في حياتي مرة لما لا يكون ختامها استشهاديا لما سمت نفس الشهيد مطالبا على الإله له المكانة عالية في جوف طير في الجنان محلقا ومغردا فوق القصور هذا مفاتيح إلى الجنة الله أكبر الأنبياء وصحبهم جيرانيا وأرى إله العالمين كما يرى بدر التمام على المشارف بادية
ثبرا يفوز بها الشهيد كرامة. ولله الحمد والشكر، ولله الحمد والشكر. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، إليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله. الله أكبر. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. والقبر يؤمن هوله وعذابه يا فرحة ومن القيامة ناجيا، ومتوجا تاج الوقار وشافعا في بالقرابة قاصيا.